kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta Euro 2020 ka hor inta aan gudagelin barnaamijka like share page-keena oo share gareey fiidiyowga mahadsanid. Habeenimada caawa markay saacadda Afrikada bari tahay 10 habeenimo waxaa si toos ah u furmi doona koobka qaramada qaaradda Yurub 2020. Tartanka qaramada Yurub ee 2020 oo baaqday sanadkii hore waxaa si rasmi ah u bilowmi doona caawa markay saacadda Afrikada bari tahay 10 habeenimo. waxaana kulanka furitaanka ciyaari doona wadamada Talyaaniga iyo Turkiga. Koobka waxaa lagu martigelin doona 11 magaalo oo kala duwan oo ku kala yaala 11 wadan. kulanka furitaanka caawa ayaa ka dhici doona caasimadda wadanka Talyaaniga ee Rome. kulanka kama dambaysta ayaa waxa uu ka dhici doona wadanka England caasimadiisa London garoonka Wembley. koobka ayaa waxa uu socon doona muddo bil ah waxaana soo gabagaboobay doona 11 July. tartanka waxa uu ka duwan yahay kuwii hore sida aan hore u soo sheegnay waxaana lagu martigelin doona 11 wadan oo kala duwan waxaana ay kala yihiin 11 wadan ee kala duwan: England, Talyaaniga, Azerbaijan, Romania, Scotland, Germany, Hungary, Denmark, Netherlands, Ruushka iyo Spain. koobka qaramada qaaradda Yurub waxa taariikh ahaan inta ugu badan ku guuleystay Germany iyo Spain iyagoo ku guuleystay min 3 jeer. sanadaha ku guuleystay xulka qaranka Germany waxa ay kala ahaayeen 1972, 80kii, 96kii, halka Spain ay ku guuleysatay sanadihii 1964, 2008 iyo 2012. ciyaartoyda ugu waaweyn ee seegi doona koobka qaramada qaaradda Yurub 2020 ama laga waayay liiska wadamadooda waxaa ka mid ah Sergio Ramos iyo Virgil van Dijk. sidoo kale ciyaartoyda la soo xushay ee ku dhaawacmay isu diyaarinta xulalkooda ee laga rabay liiska waxaa ku jira Trent Alexander-Arnold. tartanka waxaa ka qaybgalay 624 xidig oo ka kala tirsan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub. tartanka ayaa ka duwan meelo badan tartamadii hore. 24 wadan ee ka qaybgalaya tartamada qaaradda Yurub waxa ay haystaan 26 ciyaartoy, taas oo tirada guud ee xidigaha ka qaybgalaya ka dhigaysa 624 ciyaartoy. waxaanay tiradani halkan gaadhay markii ay UEFA bedeshay tirada loo ogol yahay xul kasta. sharciga ayaa hore u dhigayay in wadan kasta uu soo qaadan karo 23 ciyaartoy, laakiin fayraska corona dartii halista ciyaaryahanadu ay ugu jiraan inuu ku dhaco oo ay galaan karantiil waxaa loo ogolaaday xul walba inuu soo qaato 26 ciyaartoy. ciyaartoyda 30 kooxood oo kala duwan oo qaaradda Yurub ah ayaa ka qaybgalaya tartankan waxaana tirada ugu badan ku leh labada kooxood ee reer England, Manchester City iyo Chelsea kuwaas oo isku soo qaabilay finaalka Champions League qaaradda Yurub xil ciyaareedkii 2020-2021. Manchester United, Juventus, Bayern Munich ayaa iyaguna ku leh 10 ciyaartoy iyo ka badan, halka Dinamo Kiev ay si la mid ah leedahay ciyaartoy 8 gaaraysa. xulalka ugu awoodda badan koobka ee loo saadaaliyay waxaa ka mid ah Portugal, Faransa, Germany, England. ugu dambeyn ayaad u saadaalinaysaa koobka qaramada qaaradda Yurub 2020 fikirkaaga.